بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سكارتونا قراع توردري ورير هوفيد دال meelaha mataqaana dheer oo kori karin socod dheer oo socod karin waxa suurtagal ah in dhiigga uu hooseeyo calaamadahaas waxay inta badan qayb ka yihiin calaamadaha lagu garto dhiigga hooseeya ama in qofku RBC-giisa ama red blood cell-ka ay aad u hooseeyaan unugadan RBC-ga la yiraahdo waxay u yaraadaan tiro ahaan u yaraanayaan iyo cufahaan markii ay yaraadaan kadibna qofku wuxuu isku arki doonaa calaamadaha sababtoo ah unugadan oo kuwa ka mas'uulka ah inay jirkeena oksijiinka meel kasta gaaraya maskaxda meel kasto wadnaha soo gaaraya inay qaadaan hadii marka unugyada ay yaraadaan marka waxa dhacayda in gabaabsi ku yimaado oksijiinkii gaar la xubnahaas oo muhiim u ah in mataqaan qofku uu noolaado hadan ku halmar marka hore lambar ayaa jira la kala siiyo oo la rabo normalka iyo wixii ka yar intaas ba lagu ogaado dumarka oo kale waxa inta badan mataqaan la sheegaa 12.5 ilaa 16 inuu yahay lambarka laga rabo wixii naba ku hooseeyo waa dhiig la'aan waay ragga kale mataqaana 23.5 ilaa 27 intuu dhexda loo dhigo inuu dhaco 23.5 wixii ka hooseeyo waa dhiig la'aan waay uur kale iyo mid nuujinaydo kale hadii dhiigooda ku hoos mara 9 sida 8 iyo 7 inuu too kale in dhiig ku shubis ay tahay sababtoo ah intaas ka badan mataqaana waxa waay xaalad khatar waay gabadhii uur leedahana waxa macquul ah ilmi dhiigadu intaas ka yar oo ka sii yaraado oo 9 ka sii yaraado ilmiga khatar ka garan way ka dhintaan oo kale caloosha ku miidan sababtoo ah oksijiin baahiin ama waxay noqon karaan ilmo mataqaana handicap hadhow markay dhashaan maskaxdeedu cunuga caloosha ku jira maskaxda dhaawac ka gaaro kadibna hadhow mataqaana cunuga markuu dhasho laga arka calaamado badan oo laga yaabo inay saameeyaan qaabka habshaqeynta maskaxdiisa si guud maxaa keeni kara marka dhiiggu inuu yaraado waa ognahay si guud in dhaawac oo kale qof uu dhaawac gaaro maanta dhiig uu ka baxo kale dhiig laan way keeni kartaa sida loo yaqaan laakiin waxa ugu muhiimsan ee dhiig laanta keena waxa waaye qofka oo cuntadii si fiican u cuni karin tusaalahan qofka inuu mataqaana waxyaabihii ironta ku jirtay cuntadii inuusan qaadanin ama yani ma cuni kari uu xanuunsan yahay oo laga yaabo xanuun mataqaana raaga uu qaba oo muddo soo watay oo coronary disease liyaad ama maahane wuxuusan helin sourcigii ama wixii mataqaana uu ka qaadan lahay cuntooyinka uu ka heli lahaa ironta inta badan ironta yaraatay dhiig laanta ka yimaada marka hadii ironta ku yartahay aad mataqaan inta badan iska qaato kale oo baastin umbrisis daba joogto oo aan beerkii iyo kiliyihii aadan isticmaalin qudaarta qaar laga helo ironta isticmaalin xoga dhiiginu ka hooseeya dhici karta sidoo kale vitamin B2 alifka folate waxa la yiraahdo ayaa asagana qayb ka waxyaaba mataqaan laga sameeyo unugyada dhiigga asaas ama RBC-ga kuwaas adeeguna yaraadaan xoga folate B2 alifka yaraadaan ayadana waxa dhici karta dhiig sameyntii in xoga gaabsi ku yimaado oo sameeyska dhiigga uu mataqaana oo iska bedelaan maadaama dhiigga la sameeyo ay ku xirantahay iron la helo iyo vitamin B2 alif la helo cuntooyinka inta badan laga helo iron waxa kamid ah qudaarta qaar ay ku jirto sida beetroofka kale beerka iyo kiliyaha iyo hilibka caadiga iyo ukunta kale iyo ishaqfo iron to la helaa sidoo kale B2 alifka waxa la helaa soo diyaarsan oo daawo diyaarsan sidoo kale qudaarta cagaaran inta badan waa laga helaa noocyada ahaato sidoo kale hilibkana waa laga helaa B2 alifka marka qofku intaas ku helo oo qaato cunto xumaan aysan jirin dhiiggu soo kacaya laakiin haddii cunto xumaan ay jirto gabadhii mataqaana nuujinaydo kale oo ama gabadhii uurka leedahay kale wadnaha aad u xanuunayo kale bug xanuun oo jiro kale oo gaas iyo ama xanuunada dheefshiidka ay jiraan qofku waxa muhiim inuu qaato daawooyinka dheefshiidka mataqaana aashta tirada badan caloosha ka yareeya qofku inuu iska dhaafo waxyaabo la dhanaan sida basbaaska suugada dhinaanta waxyaabo la halmaala marka inta uu iska dhaafo waxa dhacayda in bug xoga waxa siro kadibna qofku wax qaada karo dhakhtarna oo la tasto waa muhiim dadka sidoo kale xanuunada raaga qaba sida xanuunada dhiig karka sonkorta cudurka ku dhaca wadnaha kolestaroolka yani kuwa saameynta qofku geysan karaan la jeedaa ama kaliyaha nolol kale xanuunada kaliyaha si qaas ah hadii kaliyu mataqaana ay soo saareen dhacaan kaliya erythropoietin waxa inta badan dhici karta inaan dhiig fiican aan la sameynin oo inta la xadiga aan la sameynin marka xanuunada iyaga raaga way keeni karaan xogaa qofka dhiigga inay xaqiisa ka yareeyaan xanuuno sidoo kale waxa jira autoimmune disease oo iyaguna marka qaar keeni kara oo dhiigga inuu leedo oo la baabi'iyo inta badan mataqaana waxyaaba keenan dhiiglaanta kamid ah ugu dhigo marka daawooyintaas marka waxa la rabaa qofku inuu isku control dhakhtarna uu leeyahay oo dhakhtarka uu la xiriir insha Allah taala daawooyinka marka waxa soo kala sheeganay in kuwa supplement oo kiyaal caadi diyaarsan ama shuruubiyo noocaas oo isku dhex daro oo laga yaabo iron vitamin B12 koobiin ama kala gooniya ama vitamin B12 iyo iron gooniya iyo sidoo kale qof inuu ku dadaalo isticmaalka qudaartii biyaha caadiga ah inuu badsado kamada biyo markaas biyo yihiin dhiig baan la sameeyay qayb ka yihiin
marka qudaartii cagaareed midii mataqaanaa laga heli jiray ironta waxyaabaha mataqaanaa cuntooyinka sida ukunta hilibka caadiga beerka kaliya waxaan u isticmaal rabaa insha Allah taala intaan kusoo koobina barnaamijkeena insha Allah taala